isgoosyada qaar ee magaalada Muqdisho oo maanta xiran ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay xireen qaar ka mid ah isgoosyada ku yaala magaalada caasimadda iyagoo u diiday inay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay. Isgoosyada ciidamada ay xireen ayaa waxaa ka mid ah isgooska Banaadir, Zoobe, Taleex, wadada hormartada Gadda Weyn ee magaalada Muqdisho iyo isgoosyo kale. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababaha loo xiray isgoosyada, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu maanta booqanayo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee ku taala isgooska Zoobe. Qaybo badan oo ka mid ah wadada Maka al-Mukarrama ayaa waxaa lagu arkayaa dadweyne si raxan u socda oo wadada lugeynaya maadaama gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay loo diiday inay isticmaalaan. Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dhibaatooyin kala duwan ku qabaan xirnaanshaha wadooyinka iyagoo aan wax digniin qabin.